Midooyinkii dambe ayaa waxaa baraha bulshada la isla dhex marayay in falaasyada ama talaagadaha lagu keydiyo shaaha iyo biyaha in lagu dhex beeray maadooyin khatar ah kuwaasoo sababi kara dhimasho sida kansarka ayaa cabsi xoogan ka dhalatay waxaana laga dareemayaa guud ahaan deegaanada Puntland khalkhal. Haddaba Dr. Carton oo kula kulana xafiiskiisa ayaa beeniyay wuxuuna ku tilmaamay dacaayad waana kan isagoo sharaxaad ka bixinaya. sheekada horta sidaad u maqasheen baan u maqlay waxaana lagu soo koobi karaa been fakata runi ma gaadho. waa run oo tarmuuska haddii aad jabisaan 3 geedooda warwareegsan oo kiniini aad moodayso waa ku dhex jiraan. maxayse yihiin? markii tarmuuska kan la samaynayay oo masnuucu samaynayay waad og tahay waa quraarada tani goorta la samaynayo waa buufin iyadoo dhan baa qaadaya la buufinaya si foormada la rabo loo gaarsiiyo. waa 2 geedood oo isku dhex jira. haddana haddii la iska buufiyo sidoodaasa oo aan 2 tan quraaradood dhexdooda xoog ku jirinin 2 quraaradood isku dhagayaan si marka loo helo matqana kuleel iyo qaboob celin waxaa la rabaa 2 inaysan istaaban oo dhexdoodii hawadaas ku jirto. sida saa loo sameeyo waa 3dan waxyaabo oo hadda la sheegayo 3 dhardhaara yani si kala haddaan kugu macneeyo digsi kuu karsamaya hadda bannaan joogto oo adan 3 dhardhaar u dhigin 3 dhardhaar oo kale weeye waxa kan meesha tan la geliyey. maxay ka samaysan yihiin haddaa ay tiraahdo hadda anigu shirkadii iyo masnacii sameeyey midna maahi mana oqon karo laakiin waxaan kuu sheegayaa inay saas yihiin sidii meesha ay ugu soo baxeen. dad waa jiraan maalin horete inta la ordaya ii keenoo yargeedkaanaan wadnaa haddii aan saa u fiirshay waxaan oran karaa qaar waa kartoon qaar waa maxaan kuu sheegaa bahal la yidhahdo dhooqo oo kaleeto goorti biyaha la geliyo waxyaala caynkaasa laakiin wax aan ku misleeyo aan oran karo waxa weeye ii sheegeen waa daawo adeero meeshaas anigu kuma arag baaritaan kuma samayno ilaa anagu ma nihin dadka baaritaanka samaynayo. waxaasoo kaleeto waxaa sameeya laboratorio industriale kuwa la dhaho industrial mataqaana laboratories. industrial laboratorieskaas waxay tahay haddii aad doonayso beer matalan inaad falato oo ciideeda inaad soo qaado ay tahay meel la geeyaa jirto oo lagu baaro si aad u ogaato beerta tani waxaad ku abuuraysaa wixii u habboonaa inay tahay. laboratoriyaas industrial maxay kaleeto qabataa guryaha la dhisaya shamiinta lagu ridaya iyo alaabo la weeliso ciido iyo waxyaala caynkaasa shamintadas iyo ciiddaas inay sidii la rabay isugu dhegi karaan si wixii wax aan jabayn loo taagan ay u noqdaan. waxay leedahay specification waxaasoo dhan adduunku waa leedahay meel geedkaas inta lagu qaado saa loogu baaro waxaas iyo waxaas weeye lagu yiraahdo adeer kartoon bay noqon kartaa. adigu waxa weeye wax shirkaddu ay ugu isticmaalayso si ay u kala celiso 2dan qarshood inaysan istaaban hawana u dhaxayso si ay ugu celiso maartay baalkan la yiraahdo kuleelkii ama qabowgii haddaad qabow ku shubanayso iyo haddaad ku shubanayso wax kulul labadoodaba. bulshada waxaan leeyahay wax hubsada inteedaan xoolihiina iska burburinin. tarmuusyadaan jijibinaysaan waxaad kala soo baxdeen lacagtuna si sahla kuguma soo gelino cirka ama soo daadina waa waxaad shaqaysatay waa waxa ilaahay kuu dhiibay oo ay tahay ammaano inaad ilaaliso si saxana ugu isticmaasho lagugu faray. ilaahay ka baqa xoolihiinana ilaashada oo si fiican u ilaashada. waxa kanaad iska deenaysaan min maalintii tarmuus la bilaabay ilaa maanta geedahaas aad sheegaysaan tarmuusyada dhexdooda waa ku jiraan. haddaad haysaan meel inta lagu baaray la yiri cudurkaasaa ku jira meesha tan waa soo jid baad yeelan kartaa. laakiin mid baan idiin sheegaya geedaha kale waxay ku jiraan 2 quraaradood dhexdooda. seebay quraarada hoose iyo dhexdaas inta ka soo baxdo meeshii shaaha ku jiray ama biyo ku jiray geedkan u soo gaaraya waa kala qaybsan yihiin. bal ii macneeya taas aan wali taas ma ana arag ma garatay. marka anu waxaan leeyahay xoolihiina ilaashada waalida iska daaya
وحبصده ما أنت بعدين وحبصده أنت إذا تلعب خلطة كنا قاقن khasaaraha ka dhashay arrintaas ayaa u badan in jajabinta talaagadahaasi loo hubiyo sidoo kalena deegaanada qaar waxaa laga soo sheegayaa in ay istaagtay ganacsiga yaryar ee iibinta shaaha kadib markii macaamiisha ay ka hor yimaadeen shaaha in loogu soo shubo falaasyada. Amar Mukhtaar Ciise, warbaahinta caalamiga ee Bulsho, magaalada Garowe.